السلام عليكم. iska warrama mawduucana caawa wuxuu quseeyaa barnaamijka ciwaankiisa kor ku soo aragteen. waxa xaqiiqo ah inay jiraan waxyaabo badan oo rag iyo dumarku ku kala duwan yihiin. ha ahaato dhan walba, ha fakarka, maskaxda, caqliga, sida wax loo cabiro, caadifada iyo guud ahaan habdhaqanka qofnimo. iyadoo dumarku laga yaabo inay u maleeyaan inay wax walba ka og yihiin ragga, haddana tani waa xaqiiqo kale oo cadaynaysa inaanay wax badan kala socon kala duwanaanshaha ragga iyo iyaga. marnaba kuma dhibayso inaad isku daydo inaad si fiican u fahanto si aad wax badan uga barato fikirkooda, sababta ay u sameeyaan waxyaabaha qaarkood iyo sida loo dareensiiyo ixtiraam iyo qadarin. inkastoo nin kasta uu leeyahay shakhsiyad gaar ah oo isaga u gooniya, haddana waxaa jira waxyaabo aad moodo in guud ahaan lagu dabaqi karo inta badan. ogaanshaha arrimahan ayaa kaa caawin kara inaad ka fogaato isfahan la'aanta guud. haddaba waa kuwan 9 arrimood oo ay tahay inay dumarku dhammaantood ka ogaadaan ragga. 1. haddii aad arrin u soo bandhigtay, weydiisa rayigiisa, ha xanaaqin marka uu kuu sheego waxa uu malaynayo ama sida isaga ula muuqato. guud ahaan raggu waxay u fakaraan sida iyaga la quman ama la saxsan. marka haddii aad su'aal weydiiso, ogow inuu ku siin doono jawaabta ugu fiican ee uu awoodo. taas micnaheedu ma aha in raggu had iyo jeer saxsan yihiin ee mararka qaarkood way qaldanaan karaan. si kastaba ha ahaatee, markaad nin weydiiso su'aal kadibna aad xanaaqdo marka uu si daacad uga jawaabo, waxba kama bedeli karo dareenkaaga, laakiin wuxuu dareemayaa inaad isaga niyad jabinayso. ninka daacadda ku ahay ma rabo inuu waxyeeleeyo dareenkaaga, laakiin haddii aad weydiiso su'aal, wuxuu isku dayayaa inuu sida ugu wacan wax uga qabto isagoon waxba ka hakranin. adiguna waa inaanad kula yaabin, waayo isagu wuxuu isku dayayaa inuu si 100% wax uga qabto talada aad weydiisatay. markaa ha kula yaabin kala duwanaanshaha. 2. inaad u noqoto qof toosan. tanina waa wadada ugu fudud ee aad ku heli karto waxaad ka rabto ninka marka uu xidhiidhku idinka dhexeeyo. dumarku waa inay ogaadaan raggu inaanay ku fiicnayn fahanka sarbeebaha iyo sida dumarku u fahmaan marka hadal sarbeeba ama ujeedo gaara leh loo hoosgeliyo wada hadalka. taas micnaheedu ma aha inay raggu doqomo yihiin, laakiin waa nooc ka mid ah siday abuur ahaan u samaysan yihiin. haddii ay rabaan inay wax kuu qabtaan, waxa kaliya ay u baahan yihiin waa inaad si gaara ugu sheegto waxaad rabto iyo sidaad u rabto. ninku weligii ma fahmayo haddii aad ka filayso inuu fahmo waxaad rabto ama madaxaaga ka dhex guuxaya, isla markaana aad adigu doonayso inuu fahmo halkaana ka akhristo. runtu waxay tahay isagu ma fahmi karo, umana samaysna abuur ahaan sidaad adigu rabto. markaa ha ka filantan. tusaale ahaan, waxaad rabtaa inuu caawa ku casho geeyo, si kastoo aad isugu daydo inuu ku fahmo, kuma fahmayo, ee si cad ugu sheeg inaad rabto inuu casho kuu kaxeeyo. haddii aad wax ka cadhoonayso ama aad murugaysan tahay, u sheeg oo marnaba ha ka sugin inuu fahmo cadhadaada iyo waxay ka kacday labadaba, waayo raggu ma jecla inay dareemaan xaalad soo jiidaysa dareen xun ama deganaansho la'aan. 3. raggu aad bay u dareemi karaan kalsooni darro. dumarka qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku adkaato inay rumaystaan in raggu ay wax kasta ku dareemaan kalsooni darro. sidoo kale, nimanku waxay dareemi karaan kalsooni darro ku saabsan muuqaalkooda, caqligooda ama kartida ay ku masruufaan qoyskooda. 4. haddii dhibkaaga aad u sheegto ninka, wuxuu kuu soo bandhigi doonaa xalal. adigu gabadh ahaan markaad la hadlaysa ninka, weligaa ma dareentaa niyad jab iyo xanaaq marka uu isku dayo inuu xaliyo dhibkaaga. tan micnaheedu ma aha inay raggu u maleeyaan inaanad awoodin inaad wax ka qabato arrimahaaga. markaad la kulanto isaga ee aad wax ka cabanayso, rabitaankiisa ugu horeeya waa inuu hagaajiyo isla markaana xal degdega u helo arrinkaaga. abuur ahaan raggu waxay u samaysan yihiin kuwa xaliya dhibaatada, rabitaankooda ugu weynina kaliya waa inuu ahaado caawiye ama xaliyaha dhibkaaga. haddaba runtu waxa weeye, sideebaad ninka ugala hadashaa dhibkaaga adigoo niyad jab dareemin? jawaabtu way sahlan tahay. marka hore u sheeg nooca caawimada aad rabto. haddii aad tala rabto, u sheeg. haddii aad rabto inuu kaa caawiyo waxyaabo kale doorashadoodu ay kugu adag tahay, u sheeg isaga. sidoo kale, haddii aad u baahan tahay qof si buuxa dhibkaaga u xalliya, isagu kaalintaas ayuu kuu fadhiyaa adiga. waxaanu sugayaa kaliya inaad u sheegto waxaad rabto oo aanad is odhan muxuu kuu fahmi waayey ama wejigaaga uga akhrisan waayey. xilliyada qaar waxaad u baahan tahay kaliya qof ku dhagaysta oo aan xal kula raadin. u sheeg inaad u baahan tahay inaad rabto kaliya in lagu dhagaysto. waxaanaad ogaataa inay abuur ahaan yihiin, isla markaana uu yahay dhagaysta dhab ah. 5. haddii aad rabto inuu ninku kula dhaqmo si mudakarnimo iyo mas'uuliyad ah, adiguna hawla dhaqmin sida carruurta. tanina waa mid ka mid ah khaladaadka ugu badan ee ay sameeyaan dumarku marka ay xidhiidh kala leeyihiin ragga, inay ula dhaqmaan sida carruurta. laakiin maaha oo kaliya in
habdhaqankani uu yahay mid hoos u dhigaya ninka ee dhab ahaantii wuxuu noqon karaa mid ninka dareensiiya inuu yahay mid aan isagu isku filnayn mas'uuliyad ahaan xaqiiqadu waxa weeye raggu inaanay ahayn caruur ee ay yihiin kuwa mudakar ah isla markaana sidaad ula dhaqantaa waxay ka dhigi kartaa kuwa awooda inay qaadaan mas'uuliyad kasta oo la saaro ama xil kasta oo ay hayaan laakiin waa haddii aad adigu garabkiisa taagan tahay una taagan tahay si dhammaystiran adigoo dareensiinaya kartida uu ilaahay ku manaystay sidoo kale waxa uu u baahan yahay lamaane ee uma baahna qof qaata kaalinta waalidka oo isaga maamula mararka qaar u ogolow inuu keligii go'aan gaadho si uu waxyaalaha qaarkii keligii u maareeyo haddii lamaane la yahay kama dhigna in la isleeyahay waa in nolol la isku darsaday 6 raggu waxay jecel yihiin inay yeeshaan meel gaar ah oo ay ku fakaraan waxa laga yaabaa tan inay kula muuqato wax qariib ah laakiin waa run raggu waxay leeyihiin meel gaar oo ay ku fakaraan oo ay arrimahooda ku gorfeeyaan markay xaaladuhu ku adkaadaan waxaanay jecel yihiin inay keligood joogaan tusaale ahaan nin ayaa laga yaabaa inuu u tamashla taga kaynta ama gaadhigiisa uu xoogaa ku dhex jiro ama inuu jeclaysto inuu daawado kubadda cagta runtu waxa weeye markay xaaladan ku jiraan ma jecla inay ka hadlaan waxa iyaga dhibaya kaliya waxay rabaan in keligood la daayo si ay arrimahooda u gorfeeyaan 7 raggu aad bay u jecel yihiin ammaanta raggu si la mid ah dumarka ayay u qadariyaan ammaanta ama in la ammaano qof kasta wuxuu jecel yahay in la dareensiiyo xoogaa kalsooni ah si aan dadaalkoodu u noqon mid aan la dareemin raggu aad bay u qadariyaan dhiirigelinta iyo ammaanta ereyada naxariista leh iyo tilmaamaha yaryari waxay isaga u noqon karaan wuxuu weligii ku tamariyo waxaanay u horseedi karaan isbeddel kasta marka ha kala bakhaylin walaalka xaajigaaga iyo gacaliyahaagaba inaad ammaanto una sheegto mararka qaar siduu ku soo baxay jaakeedkiisa cusub iyo surwaalka uu xidhan yahay hana kala bakhaylin inaad dareensiiso micnaha ay adiga kuu leedahay marka uu wax fiican sameeyo ma ogtahay isaga tan inay uga dhigan tahay dhiirigelin dhammaystiran waayo hadallada wanaagsan ee dumarku ragga waxay u saameeyaan si togan marka ku dadaal simbali inaad ammaanto hadallo dhiirigelin oo wanaagsan ku tiraahdo ku ammaanto waxqabad wanaagsan oo uu qabtay una sheegto la'aantii waxba inaanay ku qabsoomeen ama inaad isaga ku tiirsan tahay mararka qaarkood 8 waxa runa in dumarku ay moodaan ninku markuu isku buuqsan yahay ama daalan yahay inuu iyaga wax badan oo kala duwan ka qarinayo laakiin taasi sax ma aha kaliya isku day inaad hadal wanaagsan oo naxariis leh ku weydiiso waxa helay ama dhibaya isaga laakiin haddii aad isku daydo inaad si qalafsan su'aal u weydiiso oo tusaale ahaan aad dhahdo maxaad la foorarsataa ama madaxa la xoqataa markaan wax ku weydiino isna wuxuu kuugu jawaabayaa taas mid la mid ah ama uu ka aamusayaa laakiin tan beddelkeeda waxaad odhan kartaa ma ogtahay inaan jeclaan lahaa inaan ogaado xaalkaaga si aanana niyad samaan u dareemo waayo wuu dhibayaa qaabkan aad u muuqato maanta isla markaaba waxa dhaba inuu kuu sheegayo waxa ka siya raggu markan oo kale waxay u baahan yihiin hadal dabacsan iyo in la dareensiiyo xasilooni ee uma baahna hadal adag iyo canaan degdeg ah qodobka 9aad isla markaana qodobka ugu dambeeya waxa weeye in raggu ay ka diciifsan yihiin kana awood yar yihiin sida aad moodayso xaqiiqadu waxay tahay ninku marka uu ragga la joogo waa haliyay ragga la gorgortama oo aan waaban adiguna maaha inaad sida ragga ula dhaqanto waayo ninku hadal wanaagsan oo dabacsan iyo inuu agtaada xasilooni iyo ixtiraam ka helo ayuu jecel yahay si oo ugu roonow labadaba waxaan qodobkan ku xasuustay anigoo yar oo 13 jir ayuu walaalkay maalmaha kamid ah igu yiri walaala ayaanay ma ogtahay ninka ragga ahi adduunka 3 buu ugu neceb yahay waxaan ku yiri maxay yihiin walaal wuxuu igu yiri meel aan laga ixtiraameyn oo aanu qofka ahayn oo lagu yasayo meel aanu deganaansho iyo xasilooni ku dareemeyn iyo in dhirbaaxo qof dumar ah ku dhufato 3daas ayuu ninka ragga ahi ugu neceb yahay aniguna xilliga dhirbaaxadu baan ka fahmay walaalkay wuxuu ii sheegay marka taladu waxa weeye labadan arrimood ragga loogu waayo adiga dumar ahaan kuguma cusla inaad siiso ixtiraam dareensiisana inuu agtaada deganaan ku dareemo oo aanad ku buuqin markuu kuu yimaado raggu hadalka san ee qabow ayay wax ku leeyihiin ee ogow si la mid ah sidaad adigu ugu baahan tahay in lagu fahmo laguna dhagaysto naxariisna lagu siiyo nabadgelyo